salaamullaahi calaykum ku soo dhowaada Hogan 24 Media. Waxaa adduunka ku nool dad badan oo magac ku leh, balse magacoodaas u soo maray siyaabo kala duwan. Waxaan caawa idinkugu soo gudbinaynaa ninkii alwaaxa ku seexanayay muddo 3 bilood ah, kadibna taajiray. haddaba haddaad nagu cusub tahay fadlan marka hore subscribe saar, gambalelkana taabo si aad u hesho muuqaalada cusub aan soo gelino. hana hilmaamin inaad share gareyso muuqaalkan. mahadsanid. Matthias Mikkelsen waxa uu aad ugu dadaalay inuu dhiso ganacsigiisa. intii uu arrintaas ku guda jiray wuxuu xitaa meel alwaaxa seexanayay muddo 3 bilood ah. dabayaaqadii sanadii 2013 isagoo markaas ahaa 23 sano jir ganacsada ah, wuxuu si iskiisa u go'aansaday inuu ka tago Norway una aado magaalada Silicon Valley ee gobolka California, waddanka Mareykanka. ujeedadiisu waxay ahayd inuu taageero u helo sidii uu bilaabi lahaa fikradiisa ganacsi, taasoo ahayd barnaamij online ku shaqeynaya oo kuu sahlaya inaad waqtigaaga maaraysid. laakiinse markaas waxaa jiray hal dhib oo weyn oo haystay ninkan u dhashay dalka Norway. ma jirin hal ruux oo uu ka yaqaanay ilaa magaalada weyn ee San Francisco. xilligaas ma jirin qaab shirkad tiknoolajiyad ah looga hirgeliyo dalka Norway. marka waxaan go'aansaday inaan aado Silicon Valley oo ah caasimadda tiknoolajiyadda adduunka. arrintaasna waxaan u maleynayay inay tahay tallaabada ugu fiican ee aan qaadi karo, ayuu yiri Mr. Matthias. laakiin qofna kama aanan aqoon halkaas. sidaas darteed markii aan diyaaradda ka degay indhaha ayaan kala furay. waxa ugu horreeyay aan doonayay inaan sameeyo waxa uu ahaa sidii aan saaxiib u yeelan lahaa. kadib waxaan garwaaqsaday in sida ugu habboon ee saaxiib lagu sameyn karo ay tahay in dad kala duwan lagula kulmo goobaha waxbarashada ama shaqada. anigana markaas uma aanan soconin waxbarasho iyo shaqo toona. kadib markii uu si degdeg ah u dareemay cidlo, Matthias waxa uu helay qorshe. wuxuuna go'aansaday inuu dego qolalka sida wadajirka ah loo kireysto, isbuuc walibana uu meel cusub u guuro si markaas ay ugu suuro gasho inuu saaxiibo helo. fikraddii noocaas ahayd way u shaqaysay Matthias. muddo bil ah ayuu si tartiib ah u dhisay saaxiibo fara badan. laakiin caqabadii labaad uu wajahay waxay ahayd sidii uu u heli lahaa xarun ay si wadajir ah u kireystaan dad dhalinyaro ah oo doonaya inay fikrado ganacsi abuuraan. sababtoo ah halkaas waxaa laga heli karaa fursad la isku weydaarsado talooyin iyo xiriiro horseedi kara horumar. bartamihii 2014 wuxuu ugu dambeyn helay xarun noocaas oo ku taalla isla magaalada Silicon Valley. laakiin waxaa ka jiray dhib. dhammaan 15 sariir ee loogu talagalay goobtaas way buuxeen. marka haddii uu rabo inuu xaruntaas ku biiro wuxuu ku qasbanaa inuu seexdo kabar ka samaysan alwaax oo aanan lahayn daaqado. Matthias hadda waa 30 jir. wuxuu sheegay inuu fursaddaas markiiba ka faa'iidaystay maadaama aysan jirin waddo kale oo isaga u furneyd. waxa uu sidoo kale yiri waxaan alwaaxa seexanaya muddo 3 bilood ah, mana aanan dareemin doqonnimo ama wax ceeb ah. inaan helo xaruntaas fikradaha ganacsiga la isugu keeno waxay ahayd arrin aad u weyn. waxay si weyn iigu dhiirigelisay fikraddeeda ganacsi. meel muhiim ah ayay ii ahayd. haddii aanan heli lahayn uma malaynayo inaan gaari lahaa heerka aan maanta joogo, ayuu yidhi. haddii aan u soo laabanno waqtiga hadda la joogo, barnaamijka Timely oo uu leeyahay Matthias waxaa hadda isticmaalay ka badan 5,000 oo shirkadood oo ku kala yaala 160 waddan oo adduunka ah. ninkan oo ku dhashay waqooyiga fog ee dalka Norway wuxuu ku soo barbaaray magaalo ku taalla duleedka caasimadda Oslo. carruurnimadiisii wuxuu sheegay in riyadiisu ahayd sidii uu uga mid noqon lahaa ciyaartoyda kubadda cagta. gaar ahaan wuxuu xiisay jiray inuu ku biiro kooxda ka dhisan horyaalka dalka Ingiriiska ee Manchester United. laakiin markii uu dhalinyaro noqday wuxuu ogaaday inuu aad ugu fiican yahay dhinaca barnaamijyada kumbiyuutarada. isagoo weli ku guda jira dugsigiisa sare ayuu lacag ku heli jiray nashqadeynta bogagga internetka ee uu sameyn jiray shirkadaha. Matthias waxa uu sheegay in waalidiintiisu aysan markii hore ku faraxsaneen arrintan ilaa intii uu ka helayay mushaarkiisii ugu horreeyay. shaqooyinka uu sida madaxa bannaan u qabta ayuu ka urursan jiray xogaa lacag ah. laakiin markii uu ogaaday inuu sidaas heer ku gaari karin, wuxuu go'aansaday inuu hirgeliyo barnaamijkiisa Timely. taas ayayna ahayd sababtii ku kaliftay inuu u wareego magaalada Silicon Valley. markii uu muddo ka shaqeynayay xarunta ay isugu tageen dadka fikradaha ganacsi haystay, wuxuu barnaamijkiisa Timely si buuxda dhidibada ugu aasay sanadkii 2014. hal sano kadib Matthias waxa uu go'aansaday inuu magaalada Oslo u raro ganacsigiisa oo uu ugu yeero Memory.
Mathias waxa uu yiri maadaama markii aan ka soo tagay magaaladaas aysan jirin fursado fiican oo dhinaca tiknoolajiyadda ah, hadda waxay Oslo noqotay xarun hooy u ah shirkadaha tiknoolajiyadda, waxaana laga heli karaa shaqaale badan oo hawshaas qaban kara, iyadoo ay lacag dhan 6 milyan oo dollar una dhigata 4.6 milyan oo euro ah ku maalgashadeen shirkado ku kala yaala Mareykanka, Ingiriiska iyo Norway. barnaamijka Mimiri waxaa hadda ka shaqeeya 46 ruux, sanadkiina waxay iibisaa in ka badan adeeg uu qiimihiisu gaarayo in ka badan 2 milyan oo dollar. haddii aynu dib u milicsano 3 bilood oo alwaaxa seexan jiray Mathias, waxa uu yiri waqti waalan ayuu ahaa oo qiimo badan, waxaan shaqayn jiray daqiiqad kasta oo maalin waliba ka mid ah, sidaas darteed wax dan ah kama lahayn sida ay ahayd meesha aan seexanayay. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan, la sii wadaag asxaabtaada adigoo sheer garanaya muuqaalkan, hana hilmaamin inaad subscribe saartid, gambaleelkana furatid si aad u heshid barnaamijyada cusub aan soo gelinno. mahadsanid.